الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ولا ليال دمان ولا لا نقدر وانا channel كمسجد كأهل السنة والجماعة هي channel هذا كلام دمانتين هدول على المقرب تعالى كم حين كسوق بين دونا درسي أبقى يود نقول دونا قيبتي سكوبات درسي قاسوا عقوم قعدرني حرمي الله معنا هاجا adoo uga dayanaya xabiibkaaga sallallahu alayhi wasallam. darsigan iyo soo jeedintan muxaadarada tan qiimaha leh waxa inoo qaada dhigi doona inoo soo jeedinaya sheekhana sheekh Abu Dalha oo dalka Turkiga ka soo gali doona khadka insha Allah. hadduu ilaahay yiraahdo sheekhan ku soo dhaweynaya waqtigu aad noo haya dartiis qaybaha dambe iyo su'aalaha iyo qaabkoodana dib baan ka sheegi doonaa. fali tafadal sheekhana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله. ما أنت درسك أن أسكبون نمد درس عظيمة السجائي إن شاء الله. درسيga kale ee ka dambayn doona ee waqti loo qaban doono oo qaybta labaad noqon doonta billahi tabaaraka wa ta'ala. sida uu sheekh Yaxya sheegay, barnaamijka waxa la yiraahdaa xiriir ee xurmee lamaanahaaga adigoo xabiibkaaga kaga dayanaya sallallahu alayhi wa sallam, ama adigoo kaga dayanaya xabiibkaaga oo nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam. laba qaybood baan barnaamijkan ka dhigi doonaa. qaybta koobaad waxaan maanta qaadan doonaa billahi tabaaraka wa ta'ala nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam iyo sida uu xaasaskiisii oo la dhaqmi jiray. nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu canwaan u yahay ama halku dhag u yahay rag oo dhan. waxaa laga doonayaa dariiqa aan tilmaami doono ee nabi Muhammad uu haweenkiisii kula dhaqmi jiray, isagoo musharrica, isagoo waxyi ku soo degayo, dhinaca kalena isagoo bashar ah oo haddana bini aadam ah, in aanu rag haddii aanu nahay inta awoodeenna ah aan shaqadan qabanno billahi tabaaraka wa ta'ala. xalaqada kalena waxaan kaga hadli doonaa hooyooyinkii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qaabkii ay ula dhaqmi jireen nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam. haweenkaas oo matalaya ama cunwaan u ah haweenka adduunka jooga ilaa ay qiyaamo ka dhacdo waddadii ay kula dhaqmi lahaayeen raggooda. tani waxaan cunwaan ooga dhigaynaa si khaasa: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث كان صحيح يقول أنا إذن كو خير بدن هاهو نبي محمد با مخلوق أو خير بدنا. خيركم هذا نوحي خيركم لأهلي. هذا وحان أهي متك إذن كو خير بدن خير إيا حاسس لنقضه midka idinku khayr badan ee ehelkiisa ugu khayr badan baana. wa ana khayrukum li ahli, khayrukum li ahli. ka idinku khayr badan waa midka reerkiisa u wanaagsan buu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam. wa ana khayrukum li ahli. marka la isku soo dardarana nin reerkiisa u wanaagsan ana ugu khayr badan oo ana ugu fiican. xadiidka waa xadiid cadiim ah oo aad u weyn. suwar iyo tilmaamo, muuqaallo iyo tusaalo ayaana ka bixin doonaa billahi tabaaraka wa ta'ala. xurmee lamaanahaaga oo laga wado xaaskaaga adigoo kaga dayanaya xabiibkaaga sallallahu alayhi wa alihi wasallam. tusaalooyin baan soo qaadan doonaa. nabigeenna alayhi salatu wassalaam wuxuu ahaa ehel midka ugu khayrka badan
oo tacaamulka iyo cishrada midka ugu wanaagsan ee adduunka soo maray ayuu ahaa nabigeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasallam tusaalaha koowaad oon ka soo qaadan karo anas binu maalik radia allahu tacaala canhu wa ardaah baa noo warinaya wuxuu yidhi gabadha la yidhaahdo safiya binta xuyay bni akhtab sayidati bani quraydata wannadiir sayid bani qurayda wannadiir yani waxa weeyaan gabadha la yidhahdo safiya oo ka mid ahayd nabiga haweenkii uu qabay sala allahu calayhi wasallam baa war baa soo gaadhay warkaana wuxuu ka soo gaadhay gabadh lala qabo oo la yidhaahdo xafsa binti cumar ayuu warkaa ka soo gaadhay warkaasi muxuu ahaa waxaa soo gaadhay inay tidhi safiya waxay ka soo jeedaa yuhuud safiya waxay ka soo jeedaa yuhuud ayaa warkaas ayaa soo gaadhay oo ay soo siisay gabadh la yidhahdo xafsa radiyallahu anha innahaa bintu yahuudiyin aabbaheed waa yahuudi cinda abaaha min alyahuud aabbaheed wuxuu ka yimid yuhuud kadibna gabadhii way oyday oo intay fadhiisatay bay oohin ayay mataqaanaa la kala gu'i weyday kadibna nabi maxamed baa soo galay sala allahu calayhi wasallam nabigu wuxuu ku yidhi maxaa kaa oohinaya safiya binti xuyay maxaa kaa oohinaya markaasaa waxay tidhi ma aladii jacalaki tabkiina buu ku yidhi maxaa kugu dhacay ood la ooyeysaa waxay tidhi gabadha la yidhahdo xafsa ayaa fii xaqii waxay igu sheegtay inaan ahay gabadh yahuudiyada oo aabbaheed uu yahuudiya iyadu way aragtay inuu muslim yahay inay muslimo tahay way aragtaay oo xaaska nabiga weeye sala allahu calayhi waaalih wasallam kadibna nabigeennu sala allahu calayh wasallam wuxuu guda galay marka inuu ilinta ka masaxayo calayhi asalaatu wassalaam markaasuu ammaan kula dhaqaaqay safiya oo fiirsada arag marka macnaheedu waa maxay adiga xurmada ugu weyn ee lamaanahaaga waa in aad dareenkaaga qalbiga iyo ficilkaaga gacanta labaduba waa in ay raalli ka noqoto oy gaadho waa inaad ilinta ka masaxdo wabittaali waa inaad ammaanto waa inaad u naxariisato walidaalika baa asagoo ammaanaya ayaa wuxuu ku yidhi safiyoy adugu waxaad ka soo jeedaa gabadh nabi ka soo jeedaa tahay maxaa yeelay haaruun calayhi asalaatu wassalaam ayay ka soo jeedaa baa la yidhi gabadha la yidhahdo safiya ama isxaaq binu ibraahiim ayay ka soo jeedaa labaduba waa la yidhi wuxuu kaloo ku yidhi waxayna kugu gebgeblayninba xafsa wa inna cammaki lanabiyun haddee waxaa weeyaan adeerkaana waaba nabi oo dee waa muusa bni cimraan oo kaliimullah haddee gabadha adeerkeed wey waxaa kaloo la yidhahdaa ismaaciil bni ibraahiim wuxuu kale uu yidhi wa innaka la taxta nabiyi nabina wuu ku qabaa yani waa nebi muxamed baa qaba sala allahu calayhi wasallam markaasuu yidhi fafii ayi shayin tafkaru calayh haddaba maxay kugu faanaysaa gabadha la yidhaahdo xafsa radia allahu tacaala canha wa ardaa idan arrintaas waxayna tusinaysaa ma aha hadal la iska yidhi ma aha uun ficil la iska sameeye ma aha waa arrin qayb weyn ka ah akhlaaqdii nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam markaasuu nabigu xafsa la hadlo yidhi ittaqi illaaha yaa xafsa xafsana marka min baabi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar wuxuu yidhi xafsoy ilaahay ka baq ayuu yidhi ilaahay ka cabso ayuu xafsana ku yidhi nabigu sala allahu alay wasalam xadiidkan waa xadiis imaamu tirmidi ayaa soo saaraya waana xadiis saxiixa sheekh albaanina saxiix buu takhriijkiisa ku soo saarayaa calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa weeyaan kaasi waa mid wey midda labaad nabigeenna sala allahu calayh wasalam yakhsifu naclahu wayakhiitu thawbahu wayacmalu fii beytihi kamaa yacmalu axadukum fii beytihi hooyadan caaisha ayaa ku tilmaantay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ragga anigu aan ku jiro imaqlaya imaqli doona markii aanu leenahay xurmee lamaanahaaga kagana daya xabiibkaaga calayhi asalaatu wassalaam
gurigiisuu u shaqayn jiray nabigu marta kabihiisuu tolan jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam kab hadday ka dilaacdo ama ka go'do nabigu waa tolan jiray maradiisana waa tolan jiray ويعمل في بيتي كان في مهنة أهلي قريسة نبي وكشقين شري صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام وإن بدن رجع أدر دار ما يدمرك إن يقولن حريستان أو أي إحسان السمايان أو يدقن ونرسن كل نقمان نبي قلنا السجا قدوة حسنة أو أمضنا أي كد ينيسي فكان أفضل الناس وأرحمهم ضد كمدك أوغو فضل بدن أوغو نحريست بدن معاشرة إيلا دقن كالدمر كأوغو وناق بدن أيوها النبي صلى الله عليه وسلم ومده يدن عائشة كنت الماميسو عليه الصلاة والسلام مردي سأيو ترنجري كبيه سنوات ترنجري نبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك وحاكروا كمذا إلهي ويدنا عائشة كنهضو كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وكاساس إليه بشر إذنك وكرا أيوها مردي سو تلنشري أرقى أيو سولي سيشري أرقى أيو سولي سيشري يعني نفكي سرهد أسيا سو مالي جري نفتي سنة وأخادي جري نبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام محبديسة هي تعايل كالنبي صلى الله عليه وسلم ودمر كيسة وقبه وحاكمدها وأرن أنيقا يأيدين كبئنا المقلآت في عنه كان يشاركهن المأكل والمشرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحمتغنا لو ذاك عوند عبد في نفس الإناء هذا كان وعوال يعني بكيري بيكو شرامو كان دو عانق ويا مثلا أما كانوا والله في لبه هديتها مثلا لبدا سنت سارك سو قادينا كانوا مثلا عانو أما بيو أما وحو دوران نقضو هي كانوا هلبه لبدا سان كسو قادين marka nabigu sallallahu alayhi wasallam hooyadan Aisha waxay leedahay kuntu ashrabu wa nabiga waxaan cabi jiray biyahan cabi jiray kadib baan nabiga u dhiibi jiray fiiri hooyadan Aisha ayaa koobkii bay ku cabaysaa markaasay nabiga u dhiibaysaa fayad'u faahu ala mawdi'i fiya markaasuu nabigu u soo wareejiyo ayaa meeshan ka kabaday buu nabigu ka kaban jiray adduunka in kasta oo maanta jacayl ka sheekaysa romansi ka sheekaysa كتب لغا قرو قال إيا مسلم با ما dhici kartaa mase suuraysan kartaan wajacaylka iyo maxabbada iyo qadarinta iyo xurmaynta iyo farax gelinta oo nabigu farax gelinaya xaaskiisa in uu meesha ay ka kabatay hooyadeen intuu saa koobka u wareejiyo in uu ka kabado ma suuraysan kartaan maya ma dhici karto mahama wax kasta la sheego jacayl kasta oo la sheego jacaylkaasi adduunku kowkay cid kasto kaga dayatayna gaal iyo muslimba nabi maxamed bay wadadiisa haysa fayad'u faahu ala mawdi'i fiya hadii hilibkii baa ii soo haray hadduu nabigu sallallahu alayhi wasallam hilib isla cunay nabi tiri wa ta'arraqu al-arqabat waxaan goosanayaa laftaan goosanaya fayad'u faahu ala mawdi'i fiya markaan lafta u dhiibay intuu wareejiyo ayaa meeshan ka goostay أيو نبي كجوسن شيء صلى الله عليه وسلم محبة نبي وهايو ويو يمكن أما قفك الضمر كأن نورش اللو ذاتي يقابك أفرح جرينا يو يقابك وتشعيلك أبو بيريو يقابك وأولق يبسنا يا حياة نبتة أي هرت أنت أيضا تلمامي ستصالك نبي صلى الله عليه وسلم إن عوانك وحوها حرمي لما نهاجا كجانا ضيو حبيب كاجا الكرجة أنا وأن كتيرو أدوق أد كتيرتو أديك هذا يهرف ليه يدقي سنة يمقلية أذان كل الله يا محمد بالله الله يا علي بالله الله يا عثمان بالله الله يا فارح بالله الله يا جدي بالله الله يا رجعنا أذق كلف سن ككن أيندوننا ما أنت إلى قلبي إن كتير عنه تعيل كنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوددي وحاسس كيس أمري جري ويدن عائشة كشاكينسا waxay tiri nabigu banaanku nala aadi jiray wuna raaci jiray oo maxaa dhacay wa litanazzuhi li ziyadati
وأواصر المحبة يعني سببته نبي الدمر كبنانك أولا آذيو أولا اللغين يوام حي وإن محبة هي تشعيلك هي إسسو دوانشوه وإن سيبة بإلى رضي الله تعالى عنها ولذلك ما نبينا صلى الله عليه وسلم أسوى حديث البخاري ونورنا فيما أخرجه البخاري وحيلده يد عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث يعني هو يد عائشة مثلا وتصالئه نبي عادل بوهايو مذول بحقه وسينشري لكن هو يد عائشة رضي الله تعالى عنها ونورنا إن يد النبي إسرائيل تشيرين كدبنا حقيقة هذه هبينكي ركي قبوذو قرحضو مغرب كدب يوحي لمدك مثلا أي النبي إذا كان بالليل سار مع عائشة مركز النبي محوه يدن عائشة وبرناك ولاذيا كان يتحدث مركز النبي والله الشيكي سنية رضي الله تعالى عنها محاك في عنه كقيمة بضانه كوناكسنه كسر رأيه كسو جيد الشبضا محاكسو جيد الشبضا إنا أدقي حاس كاغا وضلو بيسان كدبنا وايو قرامئة والله صور نافي أتكشي كيستان فرحدي أتكشي كيستان مروقدي اللي قسو قد بأتكشي كيستان وح بدانو نولشي إذا الصومري حكمت بدانو إذا الصومرتي يعني اللوقق بدان أو إذا كسو حرمي إيا الساد أوقات بحذين أوقات دبالتين إن أتكشي كيستان محاكو ناكسن لنا عكرا مركان إيبو إنك وحا نقو بدان إنا صاحبة لا شيكي سنو صاحبة إنا شيكدو نقو بعضو صاحبة إنا ساعدت بدن يعني لفرحنو لقصلو لشيكي سنو أنن كدالين لكن ريره أني حاسس كأنه أن وقتها يعني هدام الله إصلاح الله إنه وابدقال ومرن وبوق وقيلو وإسمانداف وإسأف قردواء وحاويا وكلاقبتا سوما قرن ووحلا يابلوي وحاد قرن إيسا إنا أنن قرن ولي نورشا iyo qaabka loogu talagalay inaana wali u garanin ayaad garanaysaan inaana wali garanin ayaanu garanay walidaalika ayaa nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam in badan nabigu wuxuu ku qaabili jiray haweenkiisa hatta markii xogaa culays iyo caro iyo adayg haday dhacdo nabigu wuxuu ku qaabili jiray dulqaad iyo xilmi iyo sabr ayuu ku iyo بمحالي بصدر رحب يعني لا فرن أيو نبي قابل جري يولي وجه فرن أيو نبي قابل جري رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم حندونا يولي الدماء إن قصة كسر جبية وإذا كسر نقندنا بإذن الله تبارك وتعالى وموضوع أنا دان كالله قصة هذا نبي قصير أصغى قلبي يسون فريه هي وجهه يسون وقصليه إنه أريق الضمر كجي مادة إنه الضلقات يحلم وكقابل جري وحوليه هي فقد استأذن أبو بكر أيا نبي محمد كإذا طلب إنه أصوغ له قولي النبي يجي صلى الله عليه وسلم هذا الباب قفكم مركو إما هذا حلقة يابا إنه الشنقنا مغرب قولي واحد كجرة قولي راح ما أهين الباب هذا أضد إياه ما أهين حلقة يابا قولي وحبي أهين فسمع صوت عائشة وحوم مغلي أبو بكر جبدي سي عائشة صوت كذي أو كر نبي محمد هذا الكر أبو قاضس هو عرض مك يعني سي عائشة أبو إيران قرتها إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أذكر أبو قاض نبي قوم بكتر دودني الله مركو الصوت قلي وحوم بالله أبو بكر إنه جبدي الرباح اللي قاله رباح وجبدي سيناني نبي صلى الله عليه وسلم مركب أبو بكر وحقود العيني لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاد عي أضعتك نبي محمد عليه الصلاة والسلام أضعتك سأذكر مرينيسا النبي أبو قينيسا كان النبي صلى الله عليه وسلم أريد أسمركم أركي أبو بكر أو أدو عليسيه أي نبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوبحي مر الله مركو صوبحي أيو نبي وحو قبت أبو بكر أيو قبت نبكس أبو بكر مركو قبتي ويدين عائشة نابركي كمرتي نبي والله بدي هذا خلاف وكدحيي يعني هو يدين عائشة أنت أبيت كسو عرضي أي النبي محمد نابركي كمرتي لنا رضي الله تعالى عنها على كل حال أبو بكر وإسكتري
ayaamo markii la joogay ayaamo horta inta markuu nabigu abubakar uu baxay wuxuu yidhi kayfa ra'aytanii anqadtuka min arrajul ka warram saan ninkaa kaaga badbaadiyey ninkaa ku dili lahaa saan maanta kaaga badbaadiyey bal ka war xoogaa baa la joogay kadibna maalin dambe abubakar baa haddana yimid wuxuu u imaaday ayagoo heshiis ahoo haddana aad weliba u faraxsan markaasuu abubakar wuxuu yidhi iga qaybgeliya heshiiskiinnan iyo farxaddiinnan iga qaybgeliya sida aad maalintii aad iga qaybgeliseenba dagaalkiinni marka nabigu wuxuu yidhi qad facalnaa waanu fallay oo waanu samaynay ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama calaa kulli xaal mawduucani waa mawduuc shayiq ah waa mawduuc aad u macaan waa mawduuc la doonaya si deggan oo tartiibsan ragga aniga iyo sheekh yaxyi aanu ku jirno inaannu si wanaagsan intuu qalbiga yaga u galo maadaama oo aanu qudwo inaan noqono la doonayo iyo nin walbaba inaan maxaa la yidhahdaa rag haddaanu nahay aanu marro waddada nabi muxammed sala allahu calayh wasalam sheekh yaxyow kelimadii ma dhammaanin aan soo tukado ilaa 7-8 daqiiqa aan kuu soo noqdo mahadsan baaraka allah fiik إن شاء الله جزاكم الله خيرا شيخ أبو ضلحة وما تسيهي هدوا الله إدمه waxaan inoo sii samaynayaa qaababka iyo waxyaabaha aynu samaynayno intuu sheekhiinu ka maqan yahay waqtigoona kala duwan dartiis baa maaragtay maanta ay isku beegmeen maqrabkiisa iyo barnaamijku insha allah marka dhowr daqiiqaan sheekha sugi doona hadduu alla idmo walaalayaal hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijka waa barnaamij muhiim ah waana barnaamij aasaaska nolosheenna haddaynu nahay muslimiin khaasatan soomaali loo baahan yahay in maaragtay gunta aynu iska hagaajino oo waxa weeye weelku guntu ka unkamaaya reerku waa meeshii basic ahayd oo dadku maaragtay ka bulaalayeen oo ilmaha laga barbaarinayay ehelka iyo maaragtay qaraabada ku wada dhaqmayeen qaababka ugu wanaagsan oo marka la rabo qofku inuu haddii waanada tan oo hadda sheekhu inoo sheegayo oo ah xurmee lamaanahaaga adoo xabiibkaaga kaga dayanaya qofku mararka qaarkood uma fududaanayso inuu sameeyo haddii cibaadaadku ka waleersan yihiin haddii duruufaha qabsada uu xal u heli waayo haddii qab iyo kibir iyo tooq iyo shafgaraacina ku jiro oo qofku markii duruufi timaado uusan rabin inuu dadkii la heshiiyo kale iyo wixii lamid ah dadka qaar baa maaragtay aniga un isaga tago oo aan dhibkana geysta ayaguna raba in la raali geliyo kuwaasoo kale waxaa la rabaa in loo dulqaato mararka qaarkood marka duruufuhu waa badan yihiin hadduu alla idmo su'aalaha qaybta su'aalaha marka hadda sheekhu soo noqdo su'aalihii baanu gelaynaa su'aaluhu mawduuca ku saabsanaadeen sidoo kale waxaad kusoo diraysaan meesha laxaan la odhan jiray whatsappka masjidka oo aad commentiga ka heli kartaan qofkii uusan u baxsanayn oo aan haysan numberkaasna ama wuxuu ka muuqdaaba maxaa la yidhaahdaa gadaal buu ku qoraya qaybtaanu ku qoran yahay waa numberka halkaa ka muuqda insha allah hadduu ilaah yidhahdo whatsappka masjidkaad kusoo hagaajinaysaan waxaana saa u samaynaynaa saan su'aalaha u kala beeqaamino aan kuwa barnaamijka ku aadanna loo soo daayo hadda kuwii aan ku aadanayn barnaamijkana barnaamijyada dambe aynu u dibdhigaynaa insha allahu marka qaab noocaasa haddaynu u fakerno insha allah barnaamijku waa inoo hagaagi doona hadduu alla idmo si fiican fahamkuna waa toosnaanaya qaybtii ahayd marka eheladu iyo caa'ilooyinka iyo dadka kala dacwoonaya ama yurub ha joogeen ama africa ha joogeen ama waddan muslim ha joogeen mar walba waxa weeye sunanta ilaahay haddii aan qofku uusan qaadin oo dee aan gurigii lagu dhaqan wanaag iyo khayr waalid waxaa arkaysaa ilmaha qur-aan ku khasbaya ayagun qur-aanka akhrin ayagii baa salaada isku haysta ninkuma tukado xaas kuma tukato haddii midkood si fiican loo weydiiyo si dhaba loo waraysto la yidhaahdo hebel ma tukan ama waa kaa gardaran yahay garanaya adigu goormaa jamaaca kugu dambeysay iyo masaajid aad tagtid waxaa laga yaabaa inuu maaragtay cirka fiiriyo ama uu yidhaahdo saaka hurda ila tagtay wax lamid ah marka qofku intuu dib dhacsan yahay oo cibaadaadka iyo uu ka jeensanayo oo uusan aad ugu dadaalayn waxaa badan inuu shaydaanku aad uga adeegto oo reerkii iyo ehelkiina uu qaso hadhowna oo haddii qofkaasi waayo maxaa la yidhaahdaa meel uga baxo ilaa weysaduna waa ka jaban tahay qofkay dad isugu jeclaayeenna waa isqabteen kuwo badan baa marka meesha soo gelaya ama shayaadiinul insi ha ahaadeen ama jinni ha ahaadeen shayaadiintu waa badan yihiin dad badan baan shayaadiinul insiga aqoonin qaar badan oo guryahooda u dhisan yihiin oo gurigaaga duminaya waa shaydaan insi ah kuwo badan oo ku yidhaahda maxaa lagu soo gaday ayaanta inta arooska tahay ama xaalkaagu oo ka yahay
maxaa haysataa dhar fiican guri fiican iyo wax la mid ah inay faraxsan yihiin bay iska dhigayaan laakiin qalbiyan waxay u necab yihiin reerka ku dhisan dad badan oo noocaasa jira shartooda allah ina ka wada najeeyo marka waxaa la rabaa qaabka intaad cid kale eedi lahayd ilaa mogta qofku hadduu farku fiiq ku caatoobo oo yidhaahdo ama ninkayga xun ama haweeneydeeda xun maxaa la odhan jiray hebel iyo hebel baa reerkayga dhex galaya waxaas waxaa ka fiican inuu asagu iska bilaabo inuu reerkiisa uu hagaagsado intuus asagu reerkiisa hagaagsanna waa inuu naftiisa hagaajiyo oo see naftiisa u hagaajinaya sunnadii nabiga sala allahu alayh wasalamna waa raacaya qur'aanka iyo diinteenna islaamku waxa ayna farayso ku fiirso aayado badan oo qur'aanka ilaahay wuxuu ku sheegaya wajacala baynakum mawaddatan waraxma baa la leeyahay macnaha ninka iyo xaaskiisa in naxariis iyo gacaltooyo la dhex dhigay markuu qur'aanku sheegayo hadday kuu muuqan weydo waa carabkaaga oo xanuunsan haddaad malab ku cuntid hadduu malabku kharaar yahay inuu malabku kharaar kuu dhadhamo macnaheedu maaha inuu malabku kharaar yahay cudur baa kugu jira waa saas oo kale qofka haddii cibaadaadku ka wareersan yihiin qur'aanka iyo naska iyo waanada iyo warka kiisa wanaagsan ma solayo qofkii wuxuu noqonayaa qof maaragtay si isu haya ama khaabsan ama la dirira cid kastoo la hadasha duruufo badan oo noocaasa jira marka hadda markay masaajidka noogu yimaadaan dad is haysta ninkii baa saasa ama haweeneydii baa saasa anigu su-aashaan weydiiyey waxa weeye ii war adiga xalkaagu seeyahay cibaadadaadu see tahay dhaqankaagu ehelkaagu seeyahay hooyada iyo aabbaha ma xiriirisaa sadaqada ma la baxdaa waayo qofku markay meelahaas khayrka oo dhan ka xirxiran yihiin shaydaanka waxa weeye dhagaha haya meeshuu u jeediyuuna u jeedsanaya oo man yacshu can dikri raxma oqanayo ama xaafadaba tegayo bisin ku gal xaaskaaga iyo reerahaaga bisin kula macaamil carruurtaada ha kaa dareemay inaad qur'aan akhrisanaysid inaad tukanaysid masaajid loo socdo ilmuhu way xiiseeyaan waalidka waxay ka arkaan way jecel yihiin inay sameeyaan laakiin aabba aan salaad tegayn masaajid tegayn hadda hooyooyinku markay dacwoonayaan mararka qaarkood aabbayaasha qaar baa waxaa laga la'ayaa ilmaha orada dugsi gee ama masaajid gee especially kuwa yurub jooga marka waxyaabahaas inaynu iska saxno haddaynan iska saxin oo qof walbaba de yidhaahdo anaa maaragtay keligay baa saxan iyo hebel baa iga khaldan warkaaguba dee uu ku dhan yahay macnaheedu waxa weeye waa col hortii jabaya shaydaan baa ku jabiyey reerkaasna wuxuu iska noqonayaa reer maaragtay allah u maqan macnaha in ilaahay idin badbaadiyana leh in meesha aad u socotid u afdhuublaynaysid ay ku dhammaatana leh labadaba marka si ilaahay maaragtay reerayaasheenna iyo xaafadaheenna inuu ku hagaajiyo aynu marka ugu horreysaba u fakarno inaynu maaragtay u dhaqanno sidii rasuulku sala allahu alayh wasalam u dhaqmi jiray rasuulku sidee waxaasiisa ula dhaqmay waayo rasuulka waa lagu masayray xaasas buu guursaday duruufo badan baa soo kala mareen xaasaskiisa xataa mar buu xanaaq bil uga maqnaa macnaha bini aadanka qof kastoo naf leh inta wadnuhu ku digleeyahay waxaad diidid iyo waxaad doontay inta waa arkaysaa marka seebaa wax loo xalliyaa weeye xaaladduya inkastoo maaragtay dadka qaarba ayagu labada qof intay ishayn lahaayeen bale kale ku dhex jidho shayaadiinul insi iska ah oo reerkaasi heshiiskiisu iyo wanaagiisu uusan aad u socon karin hadda waa inay labada qof oo reerku ka dhexeeya ay arkaan dadka walaaqaya oo dad ama ehel isaga kaa dhigeen ama asxaab isaga kaa dhigeen ama saaxiib isaga kaa dhigeen waxaad ku garanaysaa qofka inuu qof xun yahay reerkiisu waa u dhisan yahay kaagana lugta ka saari mayo adiguna cidna lama heshiin kartid waayo isagaa wuxuu ku leeyahay saasaa la yeelaa haddii assalaamu calaykum la yiri lagama wadin salaamu calaykum waad garan kartaa qofkaasi inuusan khayr kuu wadin qofka dee kelmad kasta kuu fasiraya oo hadal kasta kuu leexinaya oo raba inaysan dee weligeedba or ka taagnaada reerka dhexdiisa qofkaa haddaa la iska qaban lagulamana heshiin karo adna maxaa la odhan jiray waxaad noqonaysaa qof aan la fahmin marka insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo haddaynu noqono dad muslimiina oo ka run sheegaya raacitaanka rasuulka iyo sunnada iyo hoggaansanka alle waa inaynu sunnadiisa raacno rasuulka sala allahu alayh wasalam waa rasuulku xaasaskiisa caaisha suu ula dhaqmay arag oo qofta la yidhaahdo xabsa suu ula dhaqmay arag oo khadiija suu jeclaa arag rasuulka sala allahu alayh wasalam dhaqankiisa iyo habdhaqankiisa haddaadan yeelan haddee mid kale oo gaara habdhaqankiisa aad yeelanaysaa kaasna meel wanaagsan ku geyn mayo sheikhi baa inoo soo noqday isagan insha allah hadduu alla kusoo dhaweynayaa dabadeedna su-aalihii baan geli doonaa insha allahu sheikhana kusoo dhawow asalaamu calaykum بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلمتنا waxay ku saabsanayd xurmee lamaanahaaga kagana dayo xabiibkaaga sallallahu alayhi wa alihi wasallam
waxaanu nidhi qaybta waxaan ku soo qaadanaynaa qaybta ragga khaasatan nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam qaabka ugu yaabka badan ee uu ula dhaqmi jiray xaasaskiisa maalan haweenku way qiiroodaan oo way masayraan bal mowqif kale oo na tusaalaynaya masayrkii haweenkeenna calayhi salaatu wassalaam uu qabay iyo siduu oola dhaqmay aanu aragno iyo siduu nabigu ugu qaabilaya masayrkaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam asagoo ugu beddelaya ixtiraam iyo taqdiirin iyo weynayn uu nabigu weynaynayay sala allahu calayhi wasalam hooyadana caaisha waxay ka warramaysaa oo ay leedahay nabigu in badan wuxuu xusi jiray oo uu sheegi jiray hooyadeen khadiija nabigu khadiija aad buu u jeclaa sala allahu calayhi wasalam hooyadeen caaisha waxay leedahay saa ay tahay anigiyo khadiija isma aanan soo gaadhin oo nolol iskuma aanan soo gaadhin siiraduna waa sidaas weeye nabigeena sal salam hooyadeen caaisha maxaa la yidhahdaa wuxuu guursaduu khadiijo kadib khadiijo markay dhimatay kadib unbuu maxaa la yidhahdaa weliba caaisha waa laga horreeyey طabcan radia allahu tacaala canha wa ardaaha kadibna waxay tiri hooyadeen caaisha maa girtu cala axadin min nisaa'i nabiyi sala allahu alay wasalam maa girtu cala khadiijata qad haweenkii layla qabay weligay saan oga masayray hooyadeen khadiija qof kale oo dumara ma aanan oga masayrin bay leedahay maa girtu calaa khadiija markaasi waxay raacsan wamaa ra'aytuhaa qattu weligayna khadiija mana arkin mana la kulmin noolalla iskuma aanan soo gaadhin laakiin maxay hooyadeen caaisha ka masayrtay walaakin kaana yukthiru dikrahaa in badan buu hooyadeen khadiijo ayuu nabigu sheegi jiray sala allahu calayhi waali wasalam lidaalika siduu nabigu hooyadeen u qadarin jiray hooyadeen khadiija ee u weynayn jiray ee u jeclaa ayada waxaad mooddaa inayba kelimaadkan yaryar ayna ku fillayn xalaqo gooni abay u baahan tahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxay tiri waxaa dhici jirtay intuu nabigu neef ari a qawraco shaat intuu qawraco inuu yidhaahdo asxaabtii iyo saaxiibbadii khadiija ha loo geeyo suurayso saaxiibbadii khadiija ha loo geeyo intuu qayb u jaro maalin maalmaha ka mida marka waxaan ku idhi bay tidhi rasuulka ilaahayow kaannahu lam yakun fi dunya imra'atu ila khadiija waxaad moodaa adduunkaba qof dumar ahoo kale inaan lagugu siinin ilaa khadiija ma ahane kadib buu nabigu afka furtay oo yidhi innahaa kaanat wa kaanat wa kaanat wa kaana lii minha waladun yani waxa weeyaan sidaas bay ahayd